inaan la wadaago iyo ummadda Soomaaliyeed news ama arrin degdeg ah oo u baahan inaan shacabka u iftiinino haddaan nahay booliiska Soomaaliyeed. ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa saaran mas'uuliyad qaasatan midka gobolka Banaadir waxaa saaran mas'uuliyad ka weyn mid shakhsi. waxaa saaran mid mas'uuliyadeed oo saraakiileed oo ciidan oo u baahan inaan xalino wax walba oo nabadgelyada darrada dalka u keenaya qaasatan gobolkan. sidaas darteed maantay ma doonayno in qalalaasi ka dhaco magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir. ma doonayno in dib dambe lagu soo laabto oo loogu soo laabto dagaal iyo aragti kala duwanaansho xabad wadata oo aan u qalmin qaranka Soomaaliya inay dib ugu soo laabato. ma dhici karto in baarlamaanka Soomaaliya oo anigu aan u dhaartay sharaftiisa iyo cisigiisa inaan waardiyeeyo inaan soo xiro ama soo dilo. baarlamaanka Soomaaliya maantay waxaan hakinay kulankii ay lahaayeen. waxaan u hakinay waxaa loo baahan yahay wax boob ah oo la boobayo inaysan dhicin. isfaham siyaasadeed la gaaro. baarlamaanka Soomaaliyana waxaan leeyahay 4 sano ayaad joogtiin. 4tii sano waan ka dhamaatay. waa la idin soo doortay. doorasho dib ugu laabta. deegaanadiinii iyo dadkii idin soo doortay dib kalsooni u weydiista. kadib imaada adinka oo xalaal ah oo dal soo doortay ah. adigoo lagu soo doortay ha ka fakerin inaad wax boobto oo aad wax kororsato. waxaad heli kartaa waqtiga iyo qarashka iyo rafaadka ku bixinayso intaas inaad dadkaagii ula laabato kalsooni soo weydiisato mar kale. amniga gobolka Banaadir aniga ayaa ka mas'uul ugu sarreeya muxaarad iyo mucaafid. qof walba oo Soomaaliya waa inuu amni ku joogaa. kama shaqeyn karo qalalaaso. kama shaqeyn karo hebel ku duub. kama shaqeyn karo waxaas u dhan. gurigiis nabad inuu ku joogaa. businesskiis nabad ku joogaa. magaaladiis nabad ku maraa. looma baahna abaabul dagaal. qof walba oo u haysta oo rabo inuu isticmaalo qof kale Soomaaliya waa inuu dhigaa. ma dhici karto inuu isticmaalo. mas'uuliyaddaas anaa u taagan inaan qof walba nabad ku joogo gobolka Banaadir. ciidamada qalabka sida ma kasta yihiin meel walba ay joogaan. waxaan u baahanahay u midooba cadowga u midooba. cadowga waa argagixiso. waddanka hal cadow leeyahay iyo cadow laysaga kendhigay. hebel ku duul difaac inta ka soo gal inta ka gal magaalada hala dumiye waa dhammaatay. nooma waxaan u baahannahay inaan aqli yeelano oo nolol helno oo dadka Soomaaliyeed ka baxaan qalalaasaha iyo dhibka iyo ismariwaaga. 15 bilood oo la korsado oo dib noo dhigta 15 sano ma doonayno. waxaa loo baahan yahay in mas'uuliyad wadareed la qaato. laga wada baxo dhibka. siyaasadda laga heshiiyo. nabada wada noolaado. ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan ka codsanayaa ama u sheegayaa waddanka mas'uuliyaddiisa inuu qaato. dadka isdiidan wax kala xoogaya ha ku celiyo. teendada ha ku celiyo. teendadaa furan. shirkiyaa furan. nabadaa furan. ha lagu laabto. ha lagu soo kala goosto. waxaan u baahannahay siyaasad midaysan. siyaasiyiinta haddaad tihiin inaad waddanka qaranka dantiina ka hormarsan danta qaranka loo baahan yahay. looma baahna inaad hub isku arursataan. looma baahna inaad tiraan hebel waa dhintay. hebel waa dhacay. hebel waa inta. aqliyaa loo baahan yahay. maanta aqliyaa looga baxaya. haddaadan aqli haynin awoodda ciidanka iskale. amniga ciidanka iskale. mana loo baahna in qalqal la geliyo. mana loo baahna in lagu xadgudbo. dalku wuxuu ku socday ilaa iyo carta doorashaa loo baahan yahay. ninkii la doorto doorasho kala raadso. wax xoog ah iyo wax hagardaamaa iyo dib in magaalada difaac looga galo oo daariikhda la dumiyo ma dhici karto. waxaan leeyahay mas-uuliyadda qaado mudan ra-iisul wasaare kana soo bax waa ku filan tahay.
وكوما بحنا إن المال فريسته أو واحد الجميل وأديك إن واحد ميرسه